رمضان كريم. الله سبحانه وتعالى markii uu doonayay inuu abuuro Aadam ayaa waxa uu malaa'igtii ku yiri waxaan arlada u sameeyay khaliif amarkayga fuliya. Malaa'igta ayaa arrinka la yaab ka muujiyay waxayna yiraahdeen ma waxaad sameynaysaa kuwa arlada fasaadiya oo dhiig ku daadiya inagoo ku tasbiixsana. Eebbaweyne waxa uu yiri waxaadan idinku ogeyn baan ogahay. Kadib ciida qaybaheeda kala duwan madow casaan cadaan iyo wixii la mid ah waxaan ka abuuray Nabi Aadam calayhi salaam. Nabi Aadam waxa laga abuuray dhoobo dhererkiisana waxa uu gaarayay ilaa 60 dhudhun. Ibliis waxa uu ka mid ahaa jinka waxaana laga abuuray dab. Nabi Aadam markii lagu afuufay ruuxda waxa uu Allah subhanahu wa ta'ala faray inuu tago malaa'igta uu soo salaamo. Kolkii uu tagay malaa'igta waxa uu ku yiri assalaamu calaykum. Kolkaas bay ku yiraahdeen wa calaykum assalaam wa rahmatullah. Kadib Nabi Aadam waxa uu ku soo laabtay rabbigiisa waxaana loo sheegay in salaantaasi ay tahay salaantiisa iyo tan ummadiisa. Kadib Nabi Aadam waxa la baray magacyada waxyaabo badan sida geedaha dhagaxaanta qoraxda dayaxa xidigaha iyo wixii la mid ah. Eebbaweyne waxa uu malaa'igtii weydiiyay inay sheegaan magacyada waxyaabo uu weydiiyay. Markaas bay malaa'igtii ku jawaabeen rabbiyo wax cilmi ah ma lihin anagu waxaadna bartay mooyaane. Kolkaas ba Allah subhanahu wa ta'ala amray Aadam inuu sheego malaa'igta. Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu faray malaa'igta inay u sujuudaan salaan Aadam waxa diiday salaanta kii Ibliis ahaa oo amarka Rabbi iska kibriyay. Ibliis waxa la weydiiyay sababta uu diiday amarka Allah waxaanu ku jawaabay aniga ayaa ka fiican Aadam oo aniga waxa laga abuuray dab Aadamna waxa laga uumay dhoobo. Xaasidnimada Ibliis uu qabo Aadam iyo dhashiisa xilligaas bay soo bilaabatay. Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu amray Ibliis inuu ka hoogto samada iyo jannadaba waxaana lagu daray kuwa la eriyay. Ibliis waxa laga eriyay jannada naxariista eebana waa laga fogeeyay. Ilaahay waxa uu ku magacaabay shaydaan Daaquut kii la fogeeyay kii la nacladay waxaana laga goodiyay isaga iyo kuwa raaca inay ku waari doonaan jahannama. Eebbaweyne ha naga xijaabo dhamaanteena. Nabi Aadam muddo markii uu joogay uu dareemay kalinimo ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxa uu seexday hurdo dheer. Eebbaweyne waxa uu doonay inuu abuuro Xaawo si ay u heliso Aadam. Markii uu Aadam soo toosay waxa uu arkay haweeney qurux badan wayna cajabisay waxayna u muujisay naxariis iyo daryeel. Nabi Aadam iyo Xaawa si wadajir ah ayay jannada ugu lugeynayeen una cuni jireen miraha jannada. Allah subhanahu wa ta'ala uga digay Aadam cadaawada Ibliis waxa uu ku yiri Aadam ninkaas Ibliis ahi waxa uu cadow ku yahay adiga iyo xaaskaaga ee yaanu jannada idinka saarin aanad dhibtoon. intaad jannada ku jirtaan ma haraadaysaan mana gaajoon doontaan. Ibliis markii jannada laga eriyay waxa uu isku dayay in uu soo dhunto balse ma awoodin inuu soo galo. Eebbaweyne oo la hadlaya Xaawo iyo Aadam waxa uu ku yiri Aadam adiga iyo xaaskaaga dega jannada kana cuno shifo iyo waasac ah meesha doontaan ha u dhawaanina geedan oo markaas aad ka mid noqon doontaan daalimiinta. Ibliis oo markii horeba ka hinaasay Aadam ayaa kolkii isaga sababtiisa jannada looga soo saaray waxa uu sii qaaday cuqdad iyo cadaawad tii u dambeysay waxaana bilaabay inuu waswaasiyo Aadam iyo Xaawa si ay u cunaan geedkaas laga xaaraantilmeeyay. Ibliis waxa uu ugu dhaartay haddii ay geedkaas cunaan inay ka mid noqon doonaan Xaawa iyo Aadam laba malag isla markaasna ay ka mid noqon doonaan kuwa la siiyo waaritaan. waxa uu raaciyay Ibliis inuu la talinayo labadooda. Aadam iyo Xaawa ayaa rumaystay arrinkaas oo jidhiiba cunay geedkii loo diidanaa waxayna dareemeen inay Alla caasiyeen. aad bay uga shalaayeen oo waxay dambi dhaaf weydiisteen Allah subhanahu wa ta'ala. Aadam iyo Xaawa waxa lagu amray inay u daataan dhulka. Aadam iyo Xaawa markii ay dhulka yimaadeen waxay bilaabeen inay cunto raadsadaan. Nabi Aadam waxa uu yaqaanay wax beerashada waxaanu guda galay inuu cuntadiisa soo saarto. Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu faray in arlada la camiro oo la dego waxaana sidoo kale soo kordhay carruur ay dhaleen Nabi Aadam iyo Xaawa. halkii mar waxay dhalisay mataano laba ilmood wiil iyo gabar. markii ay koreen waxa la faray in wiil kasta loo guuriyo gabar aan caloosha wadaagin. ma banaanay in wiil iyo gabar mataano ah isku guuriyo. hooyadeen Xaawa uurkii koowaad waxay siday wiil la oran jiray Qaabiil iyo gabar Kaliima la dhihi jiray. markii xigay waxay siday laba ilmood oo la kala oran jiray Haabiil iyo walaashiisa Labuuda. Qaabiil waxa uu ka shaqayn jiray beer Haabiilna waxa uu dhaqan jiray xoolaha waxayna saacidi jireen labaduba waalidkooda. waxa la gaaray xilligii labada ninba midka kale uu la aqal gali lahaa gabadha walaalkiisa la mataanta ahayd. xilligaasi ma jirin insaan kale oo isguursada. Nabi Aadam duriyadiisii
si ay u sii fido waxa uu faray guurka iyo cibaadada. Nebi Aadam baa yidhi Qaabiil waxa uu guursanayaa Lubuuda, Haabiilna waa in uu guursadaa Kaliima oo la sheego in ay aad u qurxoonayd. Qaabiil ayaa arrinkii ka xanaaqay oo yidhi Kaliima aniga ayaa ila dhalatay, aniga ayaana guursanayaa. Nebi Aadam baa u sheegay in aysan u banaanayn arrinkaas, balse Ibliis oo cadaawad u qaba Aadam ayaa u soo xaluushay dhashii Aadam. Haabiil iyo Qaabiil waxaa la faray inba mid uu la yimaado qurbaan ugu dhowaanaya Alle si loogu kala baxo arrinkan. Ninkii qurbaankiisa la aqbalo ayaa guursanaya Kaliima. Qaabiil waxa uu la yimid in yar oo beerta ka soo gurtay, halka Haabiil uu la shirtagay wan aad u weyn oo buuran. Qurbaanka waxaa lagu aqbali jiray in dab uu samada ka yimaado oo wixii la keenay mid uu ka qaado. Dabkii samada ka yimid waxa uu abbaaray wankii uu Haabiil la yimid. Qaabiil ayaa ka hinaasay arrinka oo aad uga xumaaday. Shaydaan ayaa si weyn u waswaasiyay Qaabiil, waxaana maskaxdiisa ku riday in uu dilo walaalkiisa. Haabiil oo shaqadiisa u socda ayaa Qaabiil oo dhagax weyn wata soo daba kacay. Markii uu soo dhawaaday ayuu ku dhuftay, halkaas ayuuna ku dhintay Haabiil. Shaydaan ayaa qosol la dhacay sidii uu u guulaystay qorshihiisana la dhoola cadeeyay. Nebi Aadam ayaa aad uga murugooday arrinkaas uu ku kacay Qaabiil. Kadib markii Qaabiil uu dilay walaalkii Haabiil, waxa uu in muddo dul taagnaa meydkiisa, waxaana garan waayay sidii uu ka yeeli doono. Kadib dhabarkiisa ayuu iska saartay oo ku soo xambaaray isagoo xaaladaasi ku sugan. Qaabiil waxa uu arkay laba tuke oo isdilaya, mid baa dhintay oo dhulka ku dhacay. Tukihii wax dilay baa bilaabay inuu god qodo, kolkii uu qodayna waxa uu ku riday tukihii uu isagu sababsaday. Qaabiil ayaa isagiina bilaabay inuu god qodo oo ku aaso Haabiil, kadibna ciid dusha kaga daboolo. Isagoo qoomamaynaya baa waxa uu yidhi ma waxaan ka caajisay waxa uu tukahan sameeyey. Nebi Aadan calayhi salaam waxa uu sii noolaaday muddo dheer, awlaad badanna way u dhasheen. Nebi Aadam calayhi salaam waxa uu sii noolaaday muddo dheer, awlaad badanna way u dhasheen. Isagana waxa uu barayay shareecada iyo diinta Alle, waxa uu uga digayay shirkiga, shirqoolka iyo dhagarta shaydaanka. Nebi Aadan calayhi salaam oo da'diisu sii badatay baa isagoo maalin xanuunsanaya malaa'igtu u timid. Kolkaas ayay ruuxda nafta ka qaadeen, way dhaqeen, carfiyeen, kafniyeen. Kadib inta ay ku tukadeen ayay xabaasha ku aaseen. Kadib waxay dhashiisii ku yidhaahdeen ina Aadam, waatan sunnadiina aad mari lahaydeen. Inta badan waxaa la isku khilaafaa halka uu ku aasan yahay Nebi Aadam. Waxaa inta badan la sheegaa inuu ku aasan yahay buurta uu ku soo degay oo ku taala Hindiya. Ilaahay baa og meesha Nebi Aadam iyo Xaawa ay ku aasan yihiin. Haddaba intaas ayuu ku egyahay xalqadeena caawa. Tan iyo xalqada xigta intaan ku kulmi doono waxaan iga tegayaa sidaas iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.